بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال واحد 10 كأني ستحطونها Microsoft SQL Server 2017 كاسو عن كوسو قادم تونا كلمة الله يقانو order by. حتى order by وحلو استعماله إن لو حبايو result كوسو بحية أقول لبدن إري مدهان كوحوينية. سلام رحمة أنا بدين قنص ascend أو إنه alphabetic order وحبايو. ما كروبه ABC سأسوق سويحيجيو أما سهدي أي ترى حينا كل وسط حسيدا سويحيجين مركي هربا أي سويحيجين هلكا السنتي أوردر أي تاي يدنا إنه هلكا وتمسك صوبلا بالمثل هدي هذا يسوت أوكل التيبل كقوان والرو كدينا كولوم كاس أي دي كأوكل بالمثل بقول كتيرنا يا أتقابل كريسو السنتي أوردر صحابي وحقوق بلاويا كيو تبي أو بقول كدينا إلا هوس بوتيجي إلا كوك كارو حتى بقى السنتي ديفولت حن أي بدنا أو حيصة هايو أو حكستا سيدا عادي هيدا يوصل تريان halka marka hadaba extend order kala adeegsanayo la isticmaalo kelmadan DESC waxaan ku qaadan doonaa casharadeenan Microsoft SQL Server 17 kaasoo ah version-ka imika socda ee 2018 hadaba aynu casharkeena guda galno tusaalena ka soo qaadano order by soo kaya marka hadaba Microsoft SQL Server 2017 oo soo baxay isla sanadkan 2018 saarkan iska muuqata version-kiisuna waa 17.6 marka hadaba san soo kaco aynu raaxna connect halkan markaa waxaa ku jira database kaliya oo aan ugu talagalay in aynu macnaheedu ku qaadano in casharadeenan soo socda tableskeeni hore ee inoo dhex jiray baro database-na oo ka wada saaray kadib waxaynu sameeyay laba table oo la kala yiraahdo TPL department iyo TPL employee kuwaas oo aynu tusaaleyaashan ku qaadan doono haddaba aan soo display garayno bal daatada ku jirta isla markaana soo saarno table-keen la yiraahdo employee haddaba ma ka wada aragtaan table-keenan daatadii inoogu jirta halkan waxa uu horeeyaa oo kale hadana waa ku xigta R oo fadwan markii uu bilaabay runtii isku dhex daadsan tahay oo macnaheedu M iyo Y isku xiga waxa ku jira 27 row 27 row xitaa wada aragtaa in uu ugu dambeeyo Abdilaahi oo kale ka bilaabmaya haddaba waxaynu doonaynaa in table-keenan loo habeeyo ascend order aynu markaa halkan ku qorno query ascend order-na waxay ahayd in alphabetic order loo habeeyo isla marhaantaana column-kan employee name-ka oo kaliya ayaynu odhan doonaa u habee adigoo habeynaya ascend oo ah in alphabetic order ay soo xigaan ABC saas oo kale kadib halkan waxaynu ku qoraynaa select all from baynu leenahay TPL employee kadib waxaynu raacinaynaa ereyga ah order by kadibna waxaynu leenahay waxaad u habaysaa column-ka la yiraahdo employee name adigoo waliba si habeynaya leenahay ascend oo loo soo gaabiyo ASC aynu highlight garayna kan kadibna aynu F5 taabano waad aragtaa in dhammaan column-keeni u habeeyay ascend order oo ah inuu noogu habeeyay sidii ay isugu xigeen xarfo isagoo ay ka bilaabaya uguna dambaysiinaya way haddaba sidan si lamid ah aynu soo qaadano descend order oo ah iyadoo in ay xagga dambe kaga timaado oo ay wayda ugu soo horeysiiso uguna dambaysiiso oo waxaynu nidhi iyadoo hoos ay soo daadegaysaa halka ascendeduna ay kor u soconayso aynu raan markaa select all from TPL employee order by column-kan ah employee name descend oo loo isticmaalay DESC kadibna si aynu execute kareyno aynu taabano buttonka F5 haddaba descending-ku sidan ayaa ay u habeynaysaa oo waxay kaga soo bilaabaysaa xaggii ugu hooseysay oo ah Y kadibna hoos ayay wadaysaa up to laga soo gaadho A oo ah eedii ugu sareysay oo iyadoo hoos ayay daadejinaysaa halka ascended ay ahayd alphabetic order sidii saxda ahayd u tahay haddaba column-kan oo kaliya xitaa waad soo qaadan kartaa halkan select all aynu ka wada leenahay waxaynu odhan karnaa oo kaliya select kadibna waxaanu leenahay employee name kadib waxaanu ku xidhinaa labadan bracket ee noocan ah soto name-kan ayaaba ah object ka dhex jira SQL Server-ka kadib waxaan leenahay from TPL employee order by leenahay employee name oo ah descend kadibna isaga garayno wadartan column-kii oo kale aynu soo qaaday isla markaana uu hubiyay habkii descend order-ka ah oo hoos u daadegida haddii aad doonayso inaad column-kaas oo kaliya ascended ka dhigtana sidan salamida waxaad qoraysaa select employee name from TPL employee order by employee name inaad qoraysaa ASC oo ah ascend kadibna shift iyo home iyo F5 ay isku raacinaysaa waxaad arkaysaa inuu sidii alphabetic order-ka ee saxda ahayd uu ugu habeeyay ee tusaalahay halkaas ayaynu joogay casharkeena in gaaban ee ku saabsanaa order by. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.